wararka ka soo baxayo xabsiga Mandera ay ku xiran tahay bishaaro band ayaa waxa la sheegayaa in lagu soo oogay dacwado kala duwan haddaba dacwada lagu soo oogay oo xeer ilaalinta ku soo oogtay Somaliland ayaan ku qaadari doonaa barnaamijkeen ayaan guud ahaan arrimahaasi ku qaadari doonaa barnaamijkan waxa la falanqeyn doona saaxiibkay gooni balse marka hore aan ku bilowno wariye bishaaro bando oo maalmihii u dambeeyay ku xirneed ee Hargeysa wariyahan ayaa waxa la soo qabtay magaalada Wajaale halkaasi oo ay ku sugneed ee doonaysay inay dadkeeda u timaado oo ku sugan magaalada Burco tani markii la soo qabtay dhowr maalin ayay ku sugneed xabsiga iyadoo loo geystay jirdil iyo dhibaato aad u xooggan kadibna waxa la geeyay maxkamadda waxaana lagu eedeeyay kala duwan oo ay ka mid tahay inay tahay argagixiso isla markaa argagixisada ay taageerto iyo waliba hurinta colaad sida iyaga bayaanka ay ku soo saareen qareenka ka soo horjeeday iyo waliba qareenka u doodayna arrimahaasi uu dafiray laakiin xeer ilaalinta Somaliland ay sheegeen inay gabadhan ay tahay argagixisana ay taageerto iyo colaad ay aad u hurinaysay sidoo kale waxa lagu eedeeyay aflagaadeen qaranka Somaliland waxa ay ku sheegeen oo ay leeyihiin waxay aflagaadeen baan ay u geysatay madaxweynaha iyo waliba qaranka Somaliland gooni bal ku soo dhaweeyay marka hore kulli waa arkiisay warqadan iyada ah hada bishaaro banda lagu eedeeyay inay tahay ama ay taageerto argagixisada inay hurinaysay colaad taasoo loo jeeday la saanood in mataqaanay ay aflagaadeysay qaranka Somaliland say sheegeen iyo madaxweynaha laakiin gabadhaas inta badan dhaliil iyo mataqaanaa waxa wada qaybsano iyo mataqaanaa ka hadjirta horta cukasho waa maasan tahay warka waa sida u sheegtay gabadhani argagixisada iyo waxay meelaha kale waa loo soo marmaraya laakiin mid saxda ah ayaa waxay tahay inay Muuse Biixi iyo maamulkiisa ka hor imaaday dhowr marna ay wax ka sheegtay laakiin arintan argagixisada iyo dambiye kale gashay iyo colaad ay horisay iyo waxyaabaas jidid loo soo marmaraya waa almuhiim Muuse wax ka sheegtay waa wax loo haysto gabadhan xabsiga markii laga soo bixinayna dadka beesha ay ka soo jeedo ee garxajis way hadashay waxaan ka soo jeedaa beesha habar jecel ka soo jeedo way hadleen waxay codsadeen in gabadhooda la sii daayo wax dambina aysan lahayn Muuse Biixi waxa uu dhago ka fureystay marka gabi ahaanba isqabqabsiga iyo maxaa la Muuse Biixi Cabdimaalik had kor wuxuu ku eedeynay inuu maxaa la yiraahdaa uu gafay qaranka Soomaaliland hadda bishaaro baan qaranka Soomaaliland uu gaftay marka waxa way asaga wax laga sheegay marka asaga maamulkiisa wax laga sheego dhab qofka shaqo ku soo rida wali waxa la sheegay gabadha inay dibadda jirtay isla markaana shirqool loo dhigo leer waa lagu cafiyay Muuse Biixi la kulmaysa waxaana arintan cafis inay dhamaato oo dib dambe aan lagu qabsan Soomaaliland ma sharabtana ka iman karto ayaa macnaha lagu sameeynaya ibow marka shirqool loo dhigay inuu waa loo jeedaa gabadha saas ayaa lagu shirqoolay xabsiga waa lagu jirdilay xataa marka qaar waxa la sheegay in cuntada ka soomtay marar fara badan waxa la sheegay in loo diiday in cunto loo geeyo marka Muuse maxkamadda oo gabadha soo saaray dambiye fara badan u raadinaya si gabadha xabsi badan lagu xukumo laakiin sidoo kale dawladda Ingiriiska oo dalbatay gabadhan in ay soo fargeliyaan way ka diideen xataa inay arkaan oo ay dhaheen ma baheynaba laakiin dambiyadan ay dhaheen gabadhan waa argagixiso oo argagixisa taageertay iyadoo qoraaladii mataqaanay la saacad ay ka sameeysay soo qaadanayo iyo sidoo kale hurin colaadeed oo xilligii beelaha ay dagaalayeen ay dhaysay iska eri maamulka iyo qaranka in mataqaanay ay soo duushay oo mataqaanay duulaan ay ku soo qaaday burburinayso Soomaaliland waxa soo dhan loo adeegsanaya taasi oo keeni karta la yiri marka in ama dil ama mataqaanay xabsi dheer in lagu xukumo waa horta jidadkaas dhan loo soo marmaray waa in gabadhan kiiskeeda la weyneeyo argagixisay taageerta Somaliland dadka ka soo horjeedo ay taageerta marar fara badan qaranka wax ka sheegtay meelahaas dhan waa loo soo marmaraya laakiin almuhiim waxa la rabaa sida Cabdimaalik camal gabadha ina dhowr iyo 10 sano xarig ah ama 10 sano ka badan in loo xukumo ama la dhaho dambi ay ku dhacdo qaran dil toogasho ayuu dhigaya dambiga markaad laakiin arintaas waxa marka wadanka aad jaajuusto wadanka la aad tartan siiso ayaa la dhaha qofka markaas dil waa moqta laakiin bishaaro inta badan Somaliland darka way jecleed oo markaas way shay ku faantaa Somaliland inay tahay laakiin nidaamka Muuse Biixi ka soo horjeeda nidaamka Muuse Biixi dadka ka soo horjeeda dadka meesha jooga Somaliland u dhashay gabi ahaan ka soo horjeedaan Muuse Biixi maamulkiisa iyo maxalna qaabka wax u wado qaab sax ma ah sababtoo la sacanado oo la dagaalay waxa la yiraahdaa ciriga wax ka dhig waa la soconaa oodal dadka lagu dilay dhibaatada loo geystay 207kii markii la sacanado la qabanay qaabka lagu qabtay dadka lagu laayay waa la soconaa waxaan wax dhamaanay ma ah ilaa ay kun qofood dad ka badan ay maamul Muuse Biixi inta maamulka hayay laga dilay deegaanada SSC marka taas oo kale waxa wax la qaadan kara ma ah qof walba Soomaaliyeed oo ka soo horjeeda fikirka saliimka ayuu taageersan yahay oo Soomaalinimada ah iyo calanka Soomaaliya laakiin goon isu taagan ayaan ahay dadkana xoogan ku qaadan ama dhulkan Ingiriis ay siiyay Ingiriiska dhulkan yaa siiyay marka hore idin la weydiiyo su'aashaas Ingiriiska dhulkan aniga siiyay Soomaaliya islaan gaceen adiga Ingiriiska marka hore yaa inta siiyay dhul Soomaaliyeed aad mas'uul Ingiriis aad Ingiriis gumaysi ma ahayn gumaysiga adiga maxaa sakicisa doo Ingiriis wax ku siin karo ila meeshana kugu dul haay aad maqt
marka waxyaabahaas oo kale Muuse Biixi waxa waaye wax dhaqan ma ahayn dadka Soomaaliyeed ka soo wada horjeedaan bishaara baadana dadka soo horjeeda kamid tahay fikirkan qof oo mucaarad kara wiil iyo aabiis ayaa dagaalka la socod labada dhinac kala jiro laba isla dhalata labada dhinac kala jiro marka wiil iyo adeerkiisa labada dhinac kala jiro waxaana waa siyaasad iyo fikir hadii la iska hor imaadana waa la iska hor imaado marka gabadhan uu ku gal daroonaya xabsi dheer ama dambi kiis inuu raadiyo dil ah ayuu raadinaa Muuse Biixi Cabdi laakiin Ilaahay leedahay sida Ilaahay u soo fudeyn kara ugu soo fudeyn laakiin ehelkeeda inta badan dumar baa hadda hadlayo oo xitaa xabsiga tagay loo diiday inay la kulmaan meelkaas ka hadlayo laakiin raggu ma taqaan ma hadlayaan way aaminsan yihiin kaayn baa u dhow oo adeer u ah oo wasiirka arrimaha gudaha oo ninka soo shirqolayba wax ka hadlaya ma taqaan ma laha marka soo lasma dhigi karo iyaga laftooda ma taqaan wixii uga aaminsan yihiin qayb bay ma taqaan dambi kale yihiin haade kaahin arintan dhacaysa Muuse Biixi raali ayuu ka yahay wax walba Muuse Biixi qasana ninka ku taageero oo awood siiyo waa saxsanta la yiraahdo waa wasiir Maxamed Kaahin marka labadoodu ka midaysan yihiin dadka Soomaaliya maxalada Soomaalida markana meel walba ay joogaan dadka aan fikirkooda la diiday waxa kamid ah wasiir Kaahin Muuse Biixi iyo Nuux Taane iyo ninka Maxraa Salawaan Gaal la yiraahdo golaha maxalada xilwaanada ninka afartaasna waa afartanin macnaha ku amar taagleyso maamulka Soomaaliland iyo dhibaatada ay la kulmayaan dadka horseedo waa afartooda maanta niman dhalinyarana ma ahan waa rag waaweyn oo wada ah marka dhibaatada ay wax ku hay waa afartooda hadda qaramada midow hubka cunub qabateynta barnaamijyo kale ayaa hadda loo hala galay markeen damban ku dardan bishaara banda marka waxa la leeyahay Ilaahay hadda ma taqaan xitaa jirdilkii loo geystay oo nabrihi ma taqaan ayuu ka muuqdo yaa xabsi lagu sii haya waxyaabo lagu eeday xataa waxa kamid aha in la yiri waxay la kulantay dagaal oogay oo ay la jeedaan boqorka Soomaaliland boqor Ismaan boqor Buurmadow Buurmadow waxyaabo lagu haysto in ay horta Muuse Biixi wax ka sheegtay oo dhowr mar ay wax ka sheegtay siyaasadiisana ay diiday boqor Buurmadowna ay la kulantay labada arin oo muhiimka ah oo saxda ah waa labadaas meelaha kala dhaw loo soo warwareegay labadaas hadii marka maxkamad loo saaray oo gabadha waa gabar wariye ah muddo fara badan ku dhex jirtay warinimada hadii marka Universal oo soo shaqeysay meelo kale hatta Somaliland TV Somaliland TV ka soo shaqeysay marka gabadhaani haduu u beegsanayo fikirka ka duwan see u hadashay ama see xiriir kale ula sameeyay ama sidee ugu hor imaado nidaamka jiro haduu u beegsanayo waxa rabaa sameey Muuse asaga hadda gabadha gacan laakiin isaga markuu hadda siyad bar la dagaalay wuxuu ka hadlayay xuriyatul qowlka loo diiday maanta asaga ma taqaan xuriyatul qowlka ma kala sameeyay asagoo afduba wixiis qof wuxuu ogol yahay malahan dadka Soomaaliland Soomaaliland uma ogol inay hadlaan ama inay wax sameeyaan kulli dad cabursan waa hadda soo baxyada iyo barnaamijyada xataa wax sameeyay lahayn qaabka ugu soo horjeeda dagaalka la sacanad waxaas oo dhan lama ogol dadkii oodal waa soo bixi waayeen maalintii oo maxaa la yiraahdaa 18 May la xusay ree oodal ama ree Boorama hal qof soo ma bixin waa xanaaq macnaha ninka oo laga dilay sargaalka oo meel cilla lagu aasay hadana maxaa la yiraahdaa ehelada iska qayb galin ninkii loo toogan waayay marka ninkan Muuse Biixi qoranta waa zaid qof hadli kara male Cabdimalik hadii la hadda war ma ka maqan sida loo soo daayay 2 sano iyo 2 bilood wuxuu ku dhameystay xabsi wuxuu yahay oo hadalmi ah wuxuu yahay la aqoon marka xaaladda Muuse Biixi iyo gabadhaas bishaara baan xaaladeeda halis ku jirtaa Muuse Biixi waxa umaleynaa inuu wadooyin qaldan u soo mari doono inuu gabadhaasi xukun dheer ku xukumo aad weyn waad mahadsan tahay